qaar ka mid ah jaaliyadaha kasoo jeeda degmada Wedwed ee ku nool dibadaha ayaa waxay deeq lacag soo gaarsiiyeen masjid deegaankaasi laga dhisayo sida faahinta warkaan oo inoogu soo diray dhaqtar halka Soomaali Channel uga soo warama waxaa deeq lacageed la soo gaarsiiyay dhismaha masjid jaamaca degmada Wedwed oo dhawaanta laga baahiyay telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel dhismaha masjid jaamaca degmada Wedwed ayaa dhawaan la dumiyay waxaana la doonayaa imika in laga dhigo masaajid laba dabaqa deeqdan lacageed waxaa ku deeqay jaaliyada degmada Wedwed ee ku dhaqan wadanka dibadiisa waxaana deeqdan lacageed loo soo wakiishay Ismaaciil Maxamed Jaamac oo ka mid ah waxgaradka degmada Wedwed isla markaana deeqdan lacageed ka wareejiyay guddiga gacanta ku haysta dhismaha masaajidka degmada Wedwed alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam amma ba'da assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan ka soo gudbinayaa lacag tiradeedu dhan tahay $3,200 oo ay soo wakiisheen walaalahayga islaamka ee degmada reer Wedwed ka jooga qurbo joogan Denmark dadkaas oo ay magacyadoodu kala yihiin Zainab Yusuf Abakor $1 Anab Yusuf Abakor $1 Faadimo Cabdi Hiirad iyo Cabdirasaaq Nuur Axmed $700 Cabdilaahi Nuur Axmed $350 Cali Cismaan Yusuf Cali Madoowe $150 lacagta oo isku dhan $3,200 oo aan wakiil uga ahay inaan ugu wareejo guddida masaajidka dhisaysa iyo culimada masaajidka degmada Wedwed dhisaysa waxaan iga guddoonta falyatafadal $3,200 waxaanu leenahay kuwa lacagta soo dhiibtay iyo kuwa kale ee iminka doonaya inay soo dhiibtaanba iyo kuwii hore u dhiibtayba waxaanu Ilaahay uga baryaynaa muraadadooda san oo macsi lahayn oo mid adduunyo ah oo mid aakhira ah meesha tanana waxa weeye masaajidna Soomaalidu hore waxay jirtay masaajidna dhagax dhigo madalna marxaati dhigo marka masaajidka wixii aad gashata waa wax ku oolaya adduunka waxba yaadan ka helin aakhirase oo ka badan adduunka ayaad ka helaysaa Ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inaad waalidiintiina alla ugu naxariisto idinka alla idinku naxariisto muraadadiina sana aad macsida lahayn Ilaahay midigta idinka saaro oo iyadana aanan marnaba ilaawi karin dadyoogii hore iyaguna soo gaarsiiyay intii aan baaqan gudbinay lacagaha soo diray sida gabadh magaceeda tiri halay qariyo oo iyaduna $500 noo soo dirtay gabadhana waxaan u weydiinaynaa Ilaahay khayr iyo barwaaqo ayaan akhriyo adduunba u weydiin doonaa insha Allah iyo gabdho kale oo iyaguna insha Allah taala sidoo kale iyaguna soo diray iyo kuwa noo ballan qaaday oo waan soo diraynaa intaba waanu inta Allah insha Allah taala waan ugu duceynaynaa waxaanu kuleenahay jazaakumullahu khayral jazaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcooyinkiisa albaabada khayrka Allah idin furo Allah subhanahu wa ta'ala idin ka raalin ugu dambeyntii culimada iyo waxgaradka degmada Wedwed waxay fariin guud u dirayaan guud ahaan walaalaha islaamka meel kasta ay joogaan inay ka soo qayb galaan dhamaystirka masjid jaamaca degmada Wedwed oo la doonayo in laga dhigo masaajid laba dabaqa imikana dhismihiisu uu taagan yahay mitreenkii waxaana cid tamarrucad kartaa kala xiriiri karaan lamarada idinka muuqda shaashada waa Cali Cismaan Sucaal Dhagjar wararka telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel degmada Wedwed ee gobolka Cayn